kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog iyo xaqiiq oo hadaha iyo kale aad uga barateen inaad ka daawataan muqbaahiyaha Jubbaland xaruntiisa dhexe ee magaalada Kismaayo. barnaamijka ayaan waxaan ku casuunaa ama ku martiqaadnaa dadka saameynta ku leh bulshada dhexdeeda isla markaana bulshada ay doonayso inay wax badan ka ogaato sooyaalkooda. toddobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah Nuur Xasan Maxamed oo lagu garan ogyahay Nuur Baana. waa fanaan mulaxamiiste tababaro faneed abwaan iyo waliba mujaajiliste waayo badanna u soo joogay dhacdooyinkii ka dhacay dalka iyo waliba xukuumadihii ka sii horeeyay intaysan dawladda burburin. inta barnaamijku uu hawada ku jira ayaa Nuur waxa uu si qoto dheer inoogu badhaamin doonaa sooyaalkiisa faneed iyo waliba shakhsiyan cid uu yahay. Nuur Baana soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka xog iyo xaqiiq. مرحبا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u dhawahay waa tahay inta badan dadku waxay maqlaan Nuur Baana oo yani laxankii muusikadiisa iyo hawlihiisa wato laakiin si qoto dheer inay dadku waa aqoon baa laga yaabaa waa kuma Nuur Baana. Nuur Baana waa ninka magaciisa la yiraahdo Nuur Xasan Maxamed loona garan ogyahay Nuur Baana. Nuur Baana waa nin muwaadin Soomaaliya. Nuur Baana waa nin aan maartay waxyaabaha jira iyo dhacdooyinka iyo qalad iyo sax iyo wax walba ka feejigan. Nuur Baana waa nin aad ugu xeeldheer xagga fanka iyo maartay nuxuradiisa iyo fanka iyo nidaamkiisa iyo qaabkiisa action ahaan nin aad ugu xeeldheer. Nuur Baana waa nin ka soo jeeda kilinka shanaad gobolka goday degmadiisa qalaafe ayuu ku dhashay Nuur Baana. halkaas ayuu ka soo jeedaa oo kilinka shanaad ka soo jeeda halkaas uu ka yimid. Nuur Baana wuxuu soo galay wadankan adiga waxaan qiyaasayaa ilaa 40 years yani ago ilaa 40 sano waa ka soo wareegtay inta aan macnaa koonfur Soomaaliya soo galay. xamar baan ka soo bilaabay xamar baan xoogayar soo joogay waa soo gudubnay qoyska iyo reerka ayaan la socday. Kismaayo sidaas ayaan ku imaanay Kismaayo noqday. Kismaayo sanadkii tii Kismaayo school number waxaan ka dhigtay Brimo iyo Soonto iyo Teers waxaan iskuulka bilaabay sanadkii 70 iyo labadii ayaan ka bilaabay iskuul Calanley la dhaho oo Calanley ku yaalo oo dugsiga hoose dhexe magaalada Kismaayo oo hadda jaamacadda Kismaayo ku taal oo hadda jaamacadda Kismaayo ah. iskuulkaas ayaan soo iskuul caadi ah aan soo dhigtay. waxaan ka bilaabay galaas koowaad galaas labaad galaas saddexaad galaas afraad halkaasaan ku qaatay. markii galaaska afraad aan ka baasay ayaa waxaan u wareegay dugsi dhexe meesha hadda la leeyahay aniga markaas intermediate ayaan garan jirnay laakiin dugsiga dhexe baa hadda macnaha yani ayaa loo bixiyay dugsiga oo ku yaalo rugta la dhaho. dugsiga waxa laga waajib waa dugsi aad u taariikh fog dugsigaas ma yara dugsiga rugta. Under 8 markaan galay ayaa waxaa imaaday President Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii markaas dalka madaxweynaha ka ahaa ayaa Kismaayo wuxuu ku imaaday booqasho ku yimid anigoo ardaydaas qayb ka mid anigoo ah ilaa iyo dhowr iyo 10 qof anigoo ayaa soo dhaweyntii ka qayb galnay. marka aniga fanka iyo waxa iyo hawsha iyo shaqo ma garanayn laakiin arday ahaan ayaan ugu soo dhaweynay madaxweynaha dadkii soo dhaweeyay ayaan ka mid ahaa. ka bacdi meesha lagu soo dhaweeyay waliba waxay ahayd meesha la yiraahdo dalxiiska meesha hadda xaafadda dalxiiska la dhaho oo markaas ah meel wasaaradda dalxiiska meel ah oo yani loo dalxiis tago oo wasaaraddan ah oo dalxiiska la dhaho hotel ka furan yahay oo ugaartii joogto oo maxay ahayd halkaas lagu soo dhaweeyay. ardaydii markaa ka qayb gashay soo dhaweynta oo aniga aan ka mid ahaa ayaa madaxweynuhu wuxuu u ballan qaaday ama yani abaalmarin oo dhigay in xamar la geeyo ardayda nala geeyo xamar nala geeyo iyo dhowr meel kale gobolada meel ka mid ah nala soo barbar nala soo tuso ayaa abaalmarin oo naga dhig madaxweynaha nooga dhigay inaan waliba sii raacno
balse isaga ma raacin maalinkii koowaad waa isaga u baxay annaga waana laga dabageeyey wasaaradda waxbarashada ayaa na qaaday iskool la yidhaahdo dugsi la yidhaahdo college maya college aan dhahay college la yidhaahdo Nova Soomaaliya la dhaho ninkii yaqaano waa yaqaano oo Muqdisho ku taalo oo u dhow meesha la yidhaahdo Fiat meesha Fiat la dhaho hadda xamar ku taalo ay college ku yaalo college-kaas ayaa nala dejiyey kadib college-kaas markii aan degnay ardayda waxaa la socdaa markaa nin musician ayaa ardayda markaa la socday oo yani kabanka garaaca waxa kala mid ah laakiin kabanka garaaca waxaa la isku dayay markii waxaa la abaabulay yani ubax yar oo maartay inuu ubax oo kale ah laakiin ubax ma xoogaa waan ka yarrooneen laakiin adigu ubax oo kale qaab ah ayaa loo sameeyey halkaas kuleedka Noo Soomaaliya ayaa markaa iyo ku bilowday aniga fankeyga oo Muqdisho ah marka Muqdishona yani tabaansan ku ama deganin marka aan reerka qoyska halkan degayn Kismaayo degayn laakiin martiqaadkaas baa markaa meesha ku tagnay markaan muddo meesha ku jirnay aniga marka waxaan aad interest u siin jiray bahalkan kabankan oo ma aragtay ninka garaacay sidoo garaacay ayaan ka helayba aniga bas waaba ka helayba markuu tumaayo iyo marka kale iyo mar walba waxaan jaanis siin jiray si aan bahalkan ma aragtay aan xafidi lahaa alxaasil bahalkii ayaa xoogaa iyo bilow ayaan ka helay waa fahmay waa soo laabanay Kismaayo ku soo laabanay Kismaayo markaan ku soo laabanay aniga iskuulkii halkaasaan kaga saaqday oo xaggii fanki ayaan xaggaas u batay waa tahay bal maxaa xigay markii aad iskuulkii ka baxday iyo xayaankaagii fannimo iskuulkii markii waa la xiray iskuulka soo noqodkii dambe oo iskuulka la soo xiray lagu soo noqonay aniga kuma laaban dhinacan fanka ayaan macnaha isiga waxaas u batay marka xilliga kacaanka iyo dardar qabay oo xaafadaha iyo wacyigelino iyo maxay ahayd bulshada dawladdii waxay ahayd maxamed siyaad oo runtii dadka aad maartay waxay ugu taxalluuqnayeen xaafadaha ayaa jiray oo wacyigelina jiray oo macnaha kulamaa jiray waxaas iska dhaxgalay iyo bulshadaasaan dhaxgalay qaybo waxaa jira marka oo fanaaniin markaas aniga qoonkii macnaha ama gruubkii naga roon naga weynaa naga da'dii naga weyneed ah kuwaasaan haddana sii dhaxgalay horaan usii socday waxaan isku taxalluujiyey inaan barto kabankii waa bartay kabankiiba waxaan u noqday marka ninka kabanka u garaacay ama ka mid noqdayba intaa ciddii iyo qoyskii reerkii macnaha intaa yani ila tacaalayay war iskuulkaagii war waxagaagii anigana iima muuqaninba wax kale haddii aqligana intaa iga ahayba oo iskuulkii waan baajiyey waan joojiyey fanki xaggiisii ayaan u wareegay fankii aniga oo ah ka shaqaynaya laakiin aan waxba dawli iyo meelna aanan ku xirnayn ayaa waxaa soo baxay marka wasaarad waxaa soo baxday oo la leeyahay barnaamij waxaa soo baxay dadka dawladda la shaqeeya oo aan mushaharka qaadanin oo laakiin yani Soomaalinimada iyo iska wax u qabsadaya iyo ujujuban oo ku saacideynaya hal la shaqaaleeyo barnaamij ayaa soo baxay aniga waxaan ka mid noqday oo ama nasiib u yeeshay dadkii warshada hilibka Kismaayo oo hadda ciidanka degan yihiin warshadaas ayaan shaqo la iigayay inaan ka shaqeeyo sababtoo aniga qoraan oo ahay oo waan qorayaa maartay waana akhriyaa waana qoraa waa mataqaanay warshadaas shaqo la iiga geeyey warshadaas ayaan shaqo ka bilaabay waxaan la shaqayn jiray kaaba shaqaalaha ayaan la shaqayn jiray oo warshada hilibka okay muddo markaan meesha ka shaqeynay dagaaladii waxaa bilowday markii dambe 77 ayaa soo bilowday dagaaladii markay soo bilowdeen dadkii shaqaalihii iyo waxaa la hadana waxiiba waxaa la aadayaa dagaalkaas oo Soomaali galbeed ayaa la aadayaa ama askari ha noqdo ama shicib ha noqdo ama wax ha noqdo yalla waxaa la iska soo celinayaa dawladahaas yani dawladdaas Itoobiya ayaa dagaal loo aadaya aniga marka shaqaalihii warshadan waa la qaadayay shaqaalihii warshada intooda badan way baxeen dagaalkii waa loo qaaday oo ciidamada ayay raaceen
laakiin aniga waa ka haray waa liga reebay oo waxaa liga reebay dhinacan fanka oo gobolkii macnaha u ahaa maartay inaan hadhow liga maarmi doonin ayaa soo baxday waa liga reebay halkaasaan ku haray kadib aniga oo fankii Jubbaland markaa ma jirna jubbada hoose ilaa afmadow ilaa iyo dhoobley baashi ilaa iyo ayaa mataqaanaa ayaan barnaamijyada waxaan u qaadi jirnay wacyigelinta bulshada ayaan kala shaqayn jiray oo xagga fanka maartay iyo abwaannimada iyo kasoo gudub markii xaggaa laga soo noqday halkayga isaga sii joogay markii xaggaa laga soo noqday kadib aniga Kismaayo waa ka tegay haddana waa ka laabtay sanadkee marka waxaan u laabtay magaalada la yidhaahdo Muqdisho aan ku laabtay markaan Kismaayo wax badan aan joogay kadib ayaan xamar ku laabtay kooxaha waaweyn oo xamar aan tegay waxaan ka mid noqday koox la yidhaahdo kooxda horseed oo ciidamada way anfici weysay waa ka tegay waxaan galay marka dambe koox la yidhaahdo xiriirka shaqaalaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliyeed kooxda la jiro xusuus waxnaanin oo ka dhisneed ayaan ka qayb noqday dad badan oo hadda dibadahaas jiray iyo qaar badan oo markaa la shaqeynayay hadda way joogaan oo waa ka mid kooxdaasaan ka mid ayaan kala shaqeynaya xamara iska digay haddana waan guursaday reerkii xamar baan dejistay xamara isaga noolay haddana muddo ilaa loo gaaro taariikhiyan ilaa loo gaaro burburkii ilaa dowladda maxamed siyaad barre waxaan ku badnaa Muqdisho aniga burburkii markuu soo dhawaaday oo xaaladdu isagaba bedeshay oo magaalada qaabkeeda iyo xoogaa agshimadii iyo dhaqankii lagu yaqiinay iyo nabadgelyadii iyo waxii oo dhan maartay burcad iyo waxyaabo ka bilowdeen oo xamar maartay ayaan xamar haddana qax waxaa ka bilowday aan caadi ahayn oo qax muuqda aan ahayn laakiin qax dareemeed ayaa bilowday waa ka soo gurnay nimanka kala soo baxay waa soo gurnay Kismaayo ku soo laabtay sidan Kismaayo ugu soo laabtay ayaan hadda ku joogaa tanbu uma laaban waxay Kenya aada iyo dadkii qaxootiga qulqulaya iyo wax mataqaanay tahriib aada iyo wax maxaad midna kama qaybgelin dagaal ahli warkiisa daa maxaa la jiray mucaarad iyo wax warkiisa daa dhinacaan aado iyo meel aan u leexday iyo meel aan ka bilaabay iyo qolo aan la shaqeeyay iyo qolo aan la shaqeynay midna ma jirtay noolbaana baan iska ahaanay bas wax ii dheeraa ma laha waa tahay markaan dib kuu xusuusiyey marka wacyigelinadii iyo intii dowladdii maxamed siyaad barre dhisneed waxyaabihii aad dadku ku wacyigelin jirteen amaba aad samayn jirteen maxaa ka mid ahaa sida intii dowladdii maxamed siyaad inta badan horta heesa waxaa la samayn jiray riwaayadaha xilligaas la samayn jiray kuwa hadda kulli way ka duwan yihiin laakiin xilligaas riwaayada waxaa la samayn jiray oo iska caadiya oo dhalinta iyo bulshada isaga baashaalan isaga daahan oo yani fikir lagu soo bandhigo maaragtay laakiin aan sii laablaab kale aan sii jirin iyo dowladnimada oo maaragtay wax lagu faana يعني واحد ما دولة لماذا وحنا هلي كرينا دولة لما إن في عنتها إنه قليل إن في عنتها إن دولة اللي لا شقية إن ما تغنى إيه تسكها هي وعلي قليل هسا هي كسر من جن إن كستو الله بدأ الله بدأ الموضوع فنك وهذا كوبذية هذا النوع هذا وياه نظامك نرشة بالشدة نظام كيهر نظام كان وعلي قليل من كله نظام كان أيام كوبذي taas iskana nabadgelyo waa iska ahayd waa iska wacyigelin saneed taas bulshada hay baa iska jirtay dadka dhan waxay ku baraarugsanayeen yani nolol siyaada la siiga baraarugsanaa dhib kale iyo dadka ma maaragtay problem kale ma sii haysan laakiin hadda waa noocii waa bedelmay noocyo kale badan baa imaaday maaragtay waa tahay dabcan kooxahii maxaad u qaabilsaneed marka ma dhankii fankii oo fanaanimada mise yani qaybta dambe iyo muusikada tumitaankeeda waad u xiltaan markii hore kow aniga fanka waxaan ka bilaabay waa sidaan kugu sheegay musician baa ahaa musician maan ku bilaabay fanka markaan muddo aan fanka waxaga ahaa musician ahaa ayaa waxaan isku dayay inaan haddana songs inaan heeso haddana hees qaado haddana heesaagii baan ku noqdayba
isku day waa ka gudbay waa noqday number 3 marka waxaan isku dayay inaan wax taaliifi karo erey kale aan ku dari karo erey kale yani si alifaadana aan uga qayb qaato oo u noqdo macna in wax alifi kara ayadana waan ka mid ahaa mulaxanka haddana laxanka abwaan baa jira heesa wuxuu keenayaa fikirkii uu keenaya abwaanka eryadii oo qoran oo buug ku qoran oo keenaya wuxuu leeyahay waa kan waxaan waa kan heestiibaan haddana waxaan saarayaa muusika qaabka loo qaadayo laxankiiaan saarayaa markaan xafido oo laxankii saaro ayaa qofkii markaas loogu talagalay ayaa haddana u dhiibaya oo xafidaya haddii koox dhan badan dad badan qaadayaanna saasoo kale haddana anaa xafidsiinaya qaabkii u qaadi lahay waa tahay dowladdii burburtay marka kadib maxaa dhacay marka hawshii filinkii macana waa burburay baash waa halowday leen kale noqotay macaankii waa la iskala baxay waxaa la yidhi marka haye caqli iyo fikir iyo geesinimo iyo wax walba haddii loo baahan yahay haddii wax walba diyaarayba iska ahaayeen looma baahneen laakiin hadda loo baahan yahay dad ehel oo walaalo oo isdilahay isdaaya qaabkii lagu dhihi lahay waa la iska rabaa hadda maaragtay baasha markii burburkii dhacay waxaan ka bilownay macnaha in isdaayadii baan bilownay markaan aragnay dadkii in maaragtay shaydaan uu soo kala dhexgalay dadkii walaalaha ay isdilayaan isdaayadii baan markaa anagana ka mid noqonay group waxaan iska aas markaa dowli ma jiro nidaam ma jiro wax ma jiro waa war hebel hay gaari hebelow intii bahdii maaragtay intii istiqiinay intaan soo yeerin aan dhahno bal wax un aan dhoobno maaragtay iska dhigno aan dad si aan dadka wax u fahamsiino aan isugu tagno runtii allah ya raxmo inta nin la yiraahdo cabdulqaadir cali ciyaal ayaa nala joogay halkan iyo axmed cali ciyaal labadaba axmed waa gudbay laakiin markiiba asaga halkan kuma halkan uu gudbay waxa uu gudbay halkaas Kenya iyo dadkii dibadaha sii galay sii ahaa laakiin cabdulqaadir oo abwaana ayaa noo haray oo joogay cabdulqaadir cali ciyaal cabdulqaadir ciyaal ayaa xoogaa maamulkii markaa meesha ka jiray iyo qoladan UNICEF iyo UCHR UNICEF iyo budgetyo macnaha wuxuu ka soo qaaday maaragtay dhiirigelin rabnaa inaan sameyno dadkii baan rabnaa inaan isu geyno waxaan rabnaa inaan mataqaanaa wax nabadgelyadii ka shaqeyno nabadeyntii inaan sameynaan rabnaa marka xoogaa yaroo budgeta inta ka soo qaado ayaan haddana isaga noola imaan jiray cabdulqaadir baan hawsha isla wadnay muddo afmadow dhooble badhaadhe bu-aale saakow yani ayaan tegayna macnaha oo caadi intaan macnaha gaari qaadano aan meesha tegayno dadka yani soo baraarujinayna isdaaya soomaaliya guhaad iyo isdaaya barnaamijkii markii burburkii dhacay halkaas ayuu haddana ayaa ka mid noqday maamulkii markaas jiray haddana waa burburay oo isaga jubbaland kismaayo ah maamulkii markaa waa jiray cabdiqaadir naftiisa wuu baxay oo naga tegay waa la joogay waxaa noo yimid abwaanka loo la yidhaahdo hadda generaal oo xamar joogo oo la yidhaahdo busul la yidhahdo busul generaal ayaa haddana yimid oo abwaanaas haddana asigii baa mataqaanaa soo kacay booskii cabdiqaadir soo galay waxbaa haddana laisku waxweexeeyo laisku yabyabay oo intaa waa la waday maamulyada wax isbebedelkii oo dhan oo kismaayo ka dhacayay oo hogaamiye kooxeedadii isbebedelayeen inta anigana kismaayo ayaa waxaan ka waday ololahaas isdaayada ugu dambeyn ilaa markii dambe uu imaaday ninka la yidhaahdo maxamed cabdullaahi nin la yidhaahdo oo gandaalin ku magac dheer baa yimid oo abwaan isna ah oo xamarna aan isla ahayn oo maaragtay isna halgan buu ahay ana xusuus ah ayaa noo yimid asigii baan haddana ishelnay kismaayo isku helnay warhaya markaa haddana halkii baan markii intaa macnaha ee ka baxeen qolooyin kale meesha anay ka baxeen waxaa soo galay maamulka haddeertaan aan kula hadlaya maamulka magaalada ka jiro ayaa soo galay oo madaxweynaha haddeer jubbaland madaxweynaha ka ah
ayaa doorashadiisii ugu horreysay ee axmed madoobe madaxweynaha axmed jubbaland la dhaho ayaa waxaan kaga qayb galay 9 bilood ayaan jaamacaddan hadda magaalada looga baxay ayaan 9 bilood waxaan ugu jiray jaamacaddaas oo qabaa'ilada Soomaali qabaa'ilada dega Jubbaland oo dhan degan ayaa halkaas isugu keenay oo nabadeyn iyo dib u heshiisiin iyo laga sameeyay 9 bilood oo dib u heshiisiinta ka socday Jubba ka socotay Axmed Madoobe madaxweynaha uusan ahayn uu ka mid yahay dadkii mataqaanaa ama uu yahay hogaamiyihii maanta hawshaas xagga ka keenay wadi laakiin doorashooyinkii iyo wada dib u heshiisiin dadkii colaadihii dhacay in dib u heshiisiin uu sameeyo jaamacadda ayaa 9 bilood lagu hayay markii dib u heshiisiin loo sameeyay ka bacdi doorasho ay dhacday sidaasina u dhacday 9 bilood يعني odayaasha iyo dhaqanka oo meesha isku wada jira ayaa waxaan ugu dhex jirnay in aan dib u heshiisiintaas markay shirayaanba aan macnaha wacyigelin aan ku kordhiyo anoo koox wata halkaas markii dib u heshiisiintii normaal noqotay isku yar ma taqaanay fahmay doorasho dhacday axmedoobe koow markaas lagu doortay halkaas kadib sidaas ayaa Jubbaland iyo bahashu ku noqotay Kismaayo ku soo galay waa tahay kooxdii marka xilligii burburkii aad dhisteen hadaan qaldaneen mararka qaar magac lagu yeeri jiray waa jirtay oo kuwii kooxaha hadda macaan kuwii hore intii burburku jiray burburkii intuu dhacay markuu dhacay kadib ayaa ka sameysay burburkii intuu dhacay mar waxaan dhahnay waxa la yiraahdo kooxda waxaan dhahnay kooxda degmada la mar mar waxaa waa la kala gaatay koox waxaa la oo la saxan saxo haddana waxaa la dhacna mar walba si baabaayn wixii waa si kala tagaan ma wax fadhiyo ma dooli ma naama saxan saxo waa jirtay haddana waxaa jirtay koox la dhaho oo qaab ciidameed macnaha ku magacaabana ciidan aan ahayn laakiin ciidan ahayn oo yani horseed oo iska faalsay magaca iska wadato laakiin aan ma bajiro nidaamka ma bajirin adigu kooxaha magacyo noocaas oo aan magac toos oo meel loo raaca aan lahayn iska ahaayeen waaya waxaa jirtay dabcan heeso badan oo aad qaaday ama aad samaysay markaan u noqono xusuustii dowladdii dhexe ee Jaalam Xamsi aad barno hogaaminaya Allah naxariiste bal heesii markaas aad samaysay ama aad qaadaysay bal hadaad wax naga xusuusiso heestii wax ugu horeysay masaxaad inta soo fushaad qaado horta inta badan heesaha aan qaado ama aan sameeyo inta badan xilliyada dambe u badnaayeen sababta xilligaas oo dowladda maxamed siyaad musician ahaa oo qofka kale heesaha baan garaaci jiray riwaayadaha macnaha ayaan haddana garaaci jiray qof shakhsi ah oo asaga markaas waa ayaan garaaci jiray waxaan u badnaa macnaha musician ahaa xilligaas laakiin wixii burburkii ayaa anigu u badnaay heesaha aan qaado ama aan isku dayo inaan sameeyo maaragtay waa tahay intii burburkii uu jiray kooxdii aad samayseen mar aan afoodu timaadeen waan joogay waxaa jirtay hees caan baxday oo la oran jiray Kismaayo ma nabadba maxay heestaas waxay ahayd meel walba horta aan tagno barnaamij yar oo aan wadno oo wacyigelinta ayay ka mid ahayd hadba macnaha meeshii aan tagno سنبي كسمايان كبحني مدوان تقني مدوان كبحنا ما بدالة أما دوبلة أما ناشي لا تجو يا وحن شيء كوب وحن كفريني مركوريرتي إن أنا عن كلمة كسماي ماشي أن تقول المركا أن تقنينا قال جملة سنة إن لحنو هرت من وضع قبطان إنك أنا كسمايان كإيمان هست نوع جديدة معناها سياسية أهي. بعدين أنا يرقدو هستاس كسمايو من وضبا.
ayaankay berigiyo nasiibkay gobannimo ku baahday bahdi lagu yaqiinay kismaayay baa nabadba bahdi lagu yaqiinay kismaayay baa nabadba beertii ayaankay berigiyo nasiibkay gobannimo ku baahday bahdi lagu yaqiinay afmadow ma nabadba bahdi lagu yaqiinay afmadow ma nabadba booqashadu sadwayaan boggayaga halkaasi oo beerkay idin jecele bismille ma nabadba booqashadu sadwayaan boggayaga halkaasi oo beerka idin jecele bismille ma nabadba bulshadii kismaayo salaan baaxad weyno nagu soo ballamiyeen idinkuna guddooma bulshadii kismaayo salaan baaxad weyno nagu soo ballamiyeen idinkuna guddooma afmadow guddooma waa tahay markii aan sidaas oo kale aan ugu furno heesta anigoo matalayna inaan ka imaanay kismaayo afmadow imaanay beertii ayaanka biligi iyo nasiibka gobannimo ku baahday bahdi lagu yaqiinay marka ayagaan la hadlayna bahdi lagu yaqiinay afmadow ma nabadba booqashadu sad weeyaan boggayaga halkaas idin jecele bismillah ma nabadba bulshadii kismaayo salaan macnaa baaxad weyn nagu soo ballamiyeen inaan idin macnaa noo soo dhiibeen salaan idinkuna guddoomo heesta saas ahayd waa tahay yaa sameeyey heesta heesta waxaan ku sameynay laba qof aan ku sameynay abaan kale inkastoo uu iga horreeyey oo isaga yani abwaannimada isaga iga horreeyey aniga gadaal dambe baan waxaan ka ahay maaragtay ninka la yidhaahdo cabdulqaadir cali anigana laxanka sameelo iyo dambe baan uga daray laakiin laxanka aniga waa lahay iyo xafidsiinta iyo muusiga baa aniga iska lahay dabcan waxaad ku shaqaynayseen xilligaas waddan burbursan oo qabaa'ilku islaynayaan aad iyo aad qofka haldoorka iyo qofkaan haldoorka ahayn baa yani qabiil dartiis loo ugaarsan jiray qaabsee ugu shaqayn jirtay marka idinkugu suurageli jirtay inaad gobollada isaga kala guushtaan runtii caqabadeeday lahayd magaalo markaan tagno laba nooc baa kala kulmaynay laba nooc baa kala kulmaynay horta tan caqabada guud iyo waa iska jirtay waa caadi balse inta badan waxaad malaysaa yani dadka in nabadda aada u danaynayeen haddana waa jireen haddana dad aan maaragtay dad ciil qaba weli si ciil qaba maalinkii noogu daran saybi oo kale yani anigoo meel barxad ah afmadow weli naftigeeda meel barxada galab anigoo wacyigelin ku sameynayna ayaa xabado nagu yani maaragtay nalagu soo geesna laga soo bilaabay macnaa dad badan baa meesha isugu yimid oo anigana markaa aan wacyigelinta u sameynaynay dadkii badnaa baan ka midka ahayn waa nin la soo xabaday waan ku talagalnay marka hore waddan macnaa xaalkiisa ilaahay ogyahay inaan dhex marno oo ku dhex wareegno oo degmooyinkiisa tuulooyinkiisa inaan marmarno dee barnaamij aan u bareernay buu ahay marka hore laakiin markii bahasha la isugu imaado xaqiiq markay imaato waxaa nin walba lafahayo meel maaragtay ayay ka dhacday halkii baan ku kala cararnay habeenkii baan barinay weliba maalinkaas xoogaa waxbaa magaalada naftigeeda ayaa laba group loo kala baxay laba qayb ku noqotay
aniga xaaladdeena maaragtay xoogaa qalqal gashay habeenkii meel baa lagu xariiray salaadii mar laga saaray magaalada ka baxday kismaa u salaatay maya waxaan aadnay xagaran marnay midoo xaggan ka wareegnay xagaran tagnay xagar si fiican lagu soo dhiibay naloo xoolo qalay ma taqaanay waliba nin maaragtay haddaba wasiirka xildhibaan haddaba wasiirna xildhibaan oo la yiraahdo oo caan oo la yaqaan la yiraahdo geela saliid wasiirka beeraha geela saliid ayaa si fiican noogu soo dhaweeyey meesha la yiraahdo xagar noo xoolo qalay ma taqaanay barnaamijka wacyigelinta dhowr maalmood aan joognay iyo habeenay haddana waliba na sii kaxeeyey ilaa haddana bu-aala na geeyey maaragtay isagoo hormuud noo ah yani wacyigelintaas si uu maaragtay uga qayb qaato nabadgelyada maaragtay beelaha dadkan isdintilaya maaragtay isku maaragtay qabadaasaa taas maalinkaas afnida waa noogu darnay xabadaha aadna loogu faray waa tahay dabcan siyaasadihii isdiidanaa ee ka jiray dalka gaar ahaan deegaanada hadda jubbaland isku yiraahdo markaas laakiin labada jubbooyin iyo gada ahayd oo aad ka shaqaynayseen dabcan waxaa jiray hogaamiye kooxeedyo kala arrimin jiray taariikhda waxaa la sheegaa in kooxdiinii mar idinkoo bu-aala jooga markaas uu barana joogay kadib haddana morgan uu soo weeraray oo la idinku qabtay ma jirti ha way jirtay waa sax arrintaas way jirtay qaabkee u dhacday arrintaa qaabka ay u dhacday waxa waa anigoo Kismaayo joogna oo kooxay hadda aan kuu soo sheegayo magacyo kala duwan iskala baxbaxayo hadba maamulkii markaa meeshaas koox iska taageersan macnaha magaca noocaas baa iskala baxay marka noocaas anagoo ah oo joogna ayaa wadanka maamulkan uu haysto ninka la yiraahdo Barahiiraale uu haysto ayaa meesha la yiraahdo jilib waxa ka dhacay beerahan Soomaali Bantu ama Jareerweyn iyo xoolahan maxay ahayd beesha ogaadeen ayaa dagaal ka dhex maray magaalada jilib halkan waxaa haystaa ilaa jilib ilaa bu-aalan waxaa haystaa Barahiiraale markaa Barahiiraale ayaa wuxuu yidhi waxaan aadayaa nabadgelyo si aan u soo dhexdhexaadiyo beelaha ku dagaalamaya jilib waa ogaadeen iyo jareer halkaa markaa waxaa la yidhi kooxdii waa in aad diyaar garowdaan waa maxaa aadaynaa meeshaas waxaan soo sameynaynaa nabadgelyo iyo dhexdhexaadin iyo dib u heshiisiin aan kusoo sameynayna waa baxnaa halkaanaan barraan ka raacna barre markaa gruub kalea la socday oo qola waxaa la socotay habargeed waa la socotay sheekaalaa la socotay waxaa la socday qola maktuub naftiis waa iska socday oo adigu isbahaysiga rabbi wataa jilib markaan tagnay fadhi shirki baa la galay la qabtay waxaa la abaabulay markiiba in la maartay hawshii la guda galo dhowr maalmood aan meesha joognay oo anagana aan ka sameynayno wacyigelin markii macnaha maamulka ama madaxda ay gudbooyinkooda iyo waxyaalo isku haystay iyo wax dagaalka la anagana waxaan ugu dareynay war hooy isdaaya Soomaaliya isdaaya waan raacinayna oo ma taqaanay wacyigelina inta markii dhamaatay lagu xoolo qashay waa laga heshiiyey okay inta ku dhamaatay barre ayaa wuxuu yiri waxaan fiirinaynaa bal bu-aale baryahan ma aan tegin muddooyinkan bu-aalan soo booqanayna marka ciidan dagaal ma ahee waa wafdi u kuurgelid degmooyinkaas xaaladaha sida ay yihiin ayaan maaragtay ayaan ku baxnay waan baxnay waa sii soconay bu-aalaan tagnay bu-aale markii la tegay waa iska degnay oo waa la soo dhaweeyey dareenka dagaalka dhici doonana markaa kama warqabnaba anaga kulley anaga macna waxa ahaan ma fanaanin ahaan ma ogin walaa maamulka dee ay hoos iska ogin anaga ma ogin laakiin anaga warka ma hayno markaan dhowr maalmood joognay bu-aale ayaa maalmaha ka mid iyadoo geedaha meel lagu sameeyey xoolaqal lagu sameeyey oo martiqaal lagu sameeyey oo xoolaha la qashay oo halkaa iskaga maartay oo barana fadhiyo
nin dhintay alla yaraxmo oo la dhihi jiray cabdiraxmaan سنينستو هاي ولديري عبد الرحمن ولديري شباب درين يا شباب درين أي ما هذا مياه ما هي مركي هذا وياك اسمعي قبسدين بيدري فياك دوحة سبيسك دوحة جو مركز هوفيلينكاس مجري فياك سبيسك دوحة جو هذا جوبكم نيكاس إيو نيل نيجي سيرار أسيرنا وهبر قدر هاي نيل نيجي عبد الله يرى والشيخال هاي نيكلو قيل أدي رد بدل ما عرفت سراكيل يوحد سوق ججرة أيا يحلو فليستي مركا أيا حوالي لوقلي وسولوينتي يعني مركان عم بحر إلا النقطة اسمه الله صلوا أيا قبل قاضي سلوك ججرة أيضا هالكال فدي أنا نور هذا كل هذا وان فديا ماشان فديا مالكاس نبا يميت لا نبا تميت oo aad ugu muuqato maartay daal iyo boor badan iyo dad soo lugeeyay oo adiga baadiye ah maartay laba nin ayaa meeshii timid waxay dhaheen wal soo dhawey meeshii soo galeen waxay dhaheen waxaan rabnaa ninka la dhaho barre uu fadhiyaa markaa seeraarka oo ku xigay barrow ku xigay markaa seeraarka oo hadal gidib iyo nin kale isla dhihi jiray adigoo groupkaas iyo groupka meesha la wada fadhiyay nimankaas soo galeen waxay dhaheen waxaan rabnaa ninkaas maxaa dhib u jiro oo dareen waxay dhaheen aniga waxaan maqalnay in Ismaaciil uu ka imaaday wafdi badan wafdi uu ka imaaday aan maqalnay sidaa daraadeed waxaan deganahay meel yiraahdo aan waxaan ka imaanay Arabo waxaan noo degan ciidan ayaa jooga 50 كيلومتر بين نوجرتا والمغلى يعني هذا الكون فرديا ماشي 50 كيلومتر ماشي نوجرتا إذا بانجو وحنا تاجر سنهاي ما ملكان جبلان دو واحد جبان تاجر سنهاي وحاربنا مركز إذا كاس مر بسام ولهيني مارتي حقنا لقى تاكليا حقنا لقى أوجي هاي سبهيسي دو واحد جبان هاي ما ربكو متدالنا sidaa darteed waxaan rabnaa in nala raaco oo ciidanka moraalkana loogu soo dhisaarno oo maartay aad soo aragtaan adigana ee moraalka u dhismo si ugu dhismo inaad maartay soo aragtaan anagna saasaan ku soconaa meeshaan ka soo luwayna hadda adiga isku celcelis kadib waa la iska qaqadeeyey waa la iska wahaysay galabnimadii intaan salaada casr markii la tukaday ayaa la baxay la raacay nimankii 50 kilomitir loo raacay oo Arabo markii meeshii ay aadeen ma dhanka baydhaba aadeen marka waa dhinacaas baydhaba jirta Arabo xagga jirta oo macnaha dadkii Kismaayo ka imaaday kulli ma wada bixin macnaha dad yar oo kooban oo ciidankaas inay u tagaan soo arkaan bis yani laakiin barre iyo mintaqana seeraar in waa hareen oo